waxaa aad iyo aad u muhiim ah loo baahan yahay waalidiinta khaasatan in carruurta ayagoo yar lagu tarbiyeeyo in wax badan ay aqriyaan. Maktabadaha dalka Yurub waxaad ku arkaysaa in loo sameeyey meelo maktabada dhexdiisa meelo ay carruurta ku ciyaaraan si ay u sii jeclaadaan wax aqrinta. Faa'iidooyinka uu leeyahay in carruurta ay wax aqriyaan waxaa ka mid ah waxaa kobcayo maskaxdooda, waxaa siyaadaya caqligooda, cunuga ayaa uu fikraya, xitaa cunuga waxa u fududaanayo luqadda ayaa u fududaanayaba waxaas uu aqrinayo. Maktabadooyinka waxaa yaalo kutubo oo yaryar ayaa yaalo oo farta ay weyn yihiin, cunuga uu fahmi karo uuna aqrin karo. Muhiim ma ahan in cunuga buug waaweyn uu aqriyo, cunuga xitaa wax badan ayuu ku ogaanayaa waxaas. Cunuga xitaa muhiim ma ahan in buug walba uu aqriyo, laakiin buugaagta uu jecel yahay ama waxyaaba uu jecel yahay wax laga yaabaa taariikh. Aniga waalidiinta waxaan dhihi lahaa adiga carruurtaada maktabada aada, buugaagka soo qaato, adi xitaa la joog intuu aqrinayo, xitaa u sharax faa'iidada ay leeyahay inuu wax aqriyo. Arrintaas dalkan hadda aniga aan joogo Holland waxay sameeyaan badanaa carruurta markuu seexanayo ayay buug soo qabtaan, buug sidan oo kale ah ayay soo qabtaan, kadib way u aqriyaan ilaa cunuga uu ka hurdo. laakiin adiga waxaa samayn kartaa waxay tahay kutubo waxaa jirto oo ka sheekeynaya siirada xabiibkeena ama qisasul anbiyaa ama siirada saxaabada ama caqiidada wax ka sharaxaya ama wixii la mid ah. waad soo qaban kartaa buuggaas, markaad soo qabatid kadibna waad u aqrinaysaa. Soomaalida badanaa waxay sameeyaan carruurta ayaa waxay dhahaan bax seexo, cunuga sariirta ayuu iska aadaya WhatsApp iyo waxyaabo kale ku mashquulsan yahay ama uu fakarayaa. waxaa laga yaabaa xilli dambe inuu seexdo, waalidkan uu u maleeyo cunugiisa inuu seexday. marka haddii buug adiga u akhrisid oo wax diinna wuu ka faa'iidayaa, adigana wuu ku jeclaanayaa cunuga, sababtoo markuu seexanayo adkaarta u akhrinaysaa, waad la joogaysaa, buugaa u akhrinaysaa, jacaylkiina ziyaaday, xataa su-aalooyin